بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولالد موضوع كنت لقى لنا كورما والهجرة إلى الغرب ما لها وما عليها geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuu xuma dhalay geedigaasi galbeedka la degay loo guuray runtii malaadee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaan waxyaabo kooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqliga leh wax ku garan karo waa dad muslima oo Soomaaliya qeyrkeedba ah oo ka tagay dhulkii ay deganayeen islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale deegaankay degeen maaha deegaankii reer miyiga oo kale reer miyigu intuu guri ka guuraabo meel cidlaa oodan jiray meel aad oodanaysa maaha waa deegaan degan yahay oo nidaam leh bulsho dhisan leh qaab waxbarasho leh qaanuun leh system iclaama leh dad habaysan baa loo tegay qofka Soomaaliyeed ee meesha tagay wuxuu wataa in badan oo kamid ah afarta shay ee wadanada loogu necab yahay waa muslim deegaanadaasi muslimka lagama jecla bale haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaahdo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan مسلم لما جعلا والله بوانين مدو غنا لما جعلا وصدح ولا جواق حونتي وان فندريري لاجي غنا لما جعلا وافر ووحما هيست وفقير بلشداسي كاتيجوريغا يودسنتي waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysa idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yiraahdo waa muqtarib al-ghuraba waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay nabaanka Soomaaliyeed ee Hatrawa la yiraahdo Hatrawa tagay meeshaasi muddo yara joogay dabeetana uu soo noqday ka waran baa la yiri wuxuu intii aan meesha joogay waan iswaayay buu yiri isaga iswaayay wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayay yani waa ghurba rasmiya culamaa tib ayaa waxay yiraahdaan iqtiraabka waxa la yiraahdaa fil mu'jam tibbi iqtiraabka waxay yiraahdaan waa idiraab waa isbaranbarin aqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu gariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu gariib ku noqdo culamaa falsafa waxay yiraahdaan waa qofka jawharkiisa waaya soo duuduub waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan bariga joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer hebel aan ciidaba ka sarreynin oo bulshada inuu isagu ugu sareeyo isu haysta oo caynkaas aadahay waladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxa rumaysantiin bulshada tan nawcun ma siba u xaqirtaan nin madow oo tima adag oo waxba haysan oo ka hooseeyo Soomaaliga dadkana waxa bay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxa la idin haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaqo waxaad ka tahay muslim madow xunti
وحما هايسته انت أصدقوا أستيسان تاي تاسي وحي كينيسا وحيابات ربضان له بلان مركو هورا تاريخ كوبان تلمامو أقليات كمسلم كاي قورمي قلبيت كدقين وحي بلابانتي هجرة مسلمين تاي ميشا سيو هجرودان انتي أي يوروب دقالة دقاشي كدب انت بدن هجرة وغو بدن وقت قاسي تكت دقالكي كواد دادك بدبات تقي سي أفواجتا وغو ترادا بدن لكوحا وغو ترادا بدن لواوحي دقالكي لبات كدن بي دقالكي لبات يوروب وي دومتي ويدا استميسي ودنا دي وي بابعين كدي مركي نبدو نعدي وحي وباهدان اني ودمدو دي دبو دسان دبتنا waxa loo baahday aliyad العامله dadkii shaqaalaha ahaa ee wadanada wax ka dhisi lahaa markaas waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh dadka hore waxay u badnaayeen North Africa muslimiinta degta waqooyiga Afrika Morocco iyo Algeria iyo Tunisia iyo بعض مصاري كميدا وقويغا أفريكا مسلم كدقة يبا يقبضنايين تركي الدولة العثمانية مركا يشبتي وحي كدن بيي تركي داد كاهوري تيجي ميشا وحي يقبضنايين دادان أقون بدن لحين مد ديني دي مد مادية تونا مرغمال داد شغالة oo guryaha iyo daaraha iyo tareenada iyo gawaadhida iyo waxa la dhisayo ka shaqeeya way u badnaayeen hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadanadii muslimiintana qalanqalka badani ka dhacay mar labaad baa Yurub waxa ku dhacday inay yaraato aliyad alcaamila gacanta shaqeynaysa markan dagaalmo laynin oo sidii dagaaladii 50 milyan ba ka hore ku madhay dagaalamay laynin ee iyaga go'aansaday inay istilaan iyaga go'aansaday inaanay dhalin Yurub tiradeedu waxa laga yaabaa inay ka hooseyso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday Yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa ma sii badato halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa waayo labada qof is qabaan laba ma dhalaan marka general average la eego wadanka wadan walo Yurubaba Albania muslima marka laga reebo wadanada Yurub oo dhan isku dar meel labada qof is qaba marka wadanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto sadaradeed tiradu way sii yaraanaysaa kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan ama kuwa benshaka galaya idan xoogii man powerkii shaqeynaya uu soo yaraanaya taasi waxay sababtay yana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan labada waqti aynu oran karno hijrada ugu badan waxay gashay qarnigii labaatanaad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii waana waqtiga ay dumeen caalamka islaamiga dawladda iyo dad badan oo ka tirsan generally dadkaasi maxay la kulmaan waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaa'irtooda soon iyo salaad iyo wixii la mida cidhiidhi ay ka gasho tamyiiz fi العمل shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo iyo mushkilada tarbiya wa tacliim schooling system ki oo system gaalnimo u dhisan oo ilma ka soo baxaa aanu noqonaynin qof muslima indimaaj ku dhacay iyo istilaab alhawiya assimilation iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii iyo afkoodii waayay معاناة نفسية دتك أو نفسيا ووضع بكه والدرين وكتشراء ميلو غريب كويه هو لقو حق بدنيا هاي والله يصي يلا عدادين يلا عريرين ايوه اما السيستم كجود هالنقضاء
ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdo uu dareemayo buu ku nool yahay intan dambana waxaa sii kordhay wixii 11 Sebtembar ka dambeeyey 1199 wixii ka dambeeyena waxaa kordhay إعلامك الرجال بدوحوا أبو ريو الله يدا إسلامفوبيا فوبوس أفتركي جوا حلا يدا دا وخوف لا شعوري غير مبرر وقفكوا إسكا عبسان يوان قرنين سببتوا عبسان يانا مركا إسلام مركا مغلوه ولا عبسان يا تقف لقى عبسان يانا عيد سود ويسني سماجرة منبوذ باتي دتك وين وحي سويدين يتلقوا مقرحية انت بس كدغي دونتو ما نبد ما كدغي دونتا اذا قف برشدو سو دوين سمتهيد waxaana lagu shaabadeeyay wax allaaliyo wixii xumo ah sawgeed waxaan leenahay bulshada muslimka ka muslim ahaan ama aqaliyadka Yurub aqaliya ku ama aqaliya diiniya ha noqoto ama aqaliya cirqiya ha noqoto fil ghalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan عديد السياسات يمد ثقافات كالجر يمد نقالبا وحانا عديد قاسكو هيا ترسانة إعلامية كبيرة وضخمة إن إعلام أما ميديا آدو حق بدن ودتك التوجيهية هي النظام تعليمية وقصبة والله دكتوه ومستمر وقفكو من حضانة أما كيندر جاردن لقى بلابا إلا يكر وسعري أما إلا طبعا كسنة أما سقال كسنة وهرية قصبة قانون نظام كوردن حدده ووح كستوات كرو قادو قانون بكيا له ودنان قانون كود ولي بسليم باتشوكتان لكن ماشا حتى مقع قانون كيا له كسل وريا مقعيدا لما بيحكرتيد وهو فاملي نيم اسكوا هداد مقع بدل يسو دادك مقع عالو دنبات كعود سانيسا إنا دين ودنان غار كود تصل مقعك بدل شعب وقول يند بدش لكن فاملي نيم كدو غوري سعيد له هوردن مثلا انا مصطفى اسماعيل هارون باليدا هذا سيده هارون بدل waxa loo dharay waa la islaamiya هارون dadka wato dhaminayo gol inaad ku soo biirto marka labaadna lacag baad u celinaysaa qowl walba waa in la 150 karoona siiya oo magacaasi la yani wax kasta system wax kasta qaanuun ba ka yaala marka jawaanib alxayaat oo dhami sibay u qaabaysanta u taala bulshada marka muslimka mujtamacaadkan la nooli cadaadisyada iyo cidhiidhiyada ugu badan bay la kulmaan oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya xaqu ka imanaya waxa kan qorayada qaarkood ay qoreen bay waxay yiraahdaan afar eray ba kulmin kara al-iddihaad والتمييز والتضييق والاستفزاز بين هذا أفر طائري أي الرقا قار وحقرالين والغو كل من كراه وعدادس هي مدبصوع هي عديلين هي استفزاز قفكو لكعيه لقا عريسيه وحان وحو كعرضات تربضا لغو سمايه مثلا تصاليا لدنسيو ووقتي انه شعيرته اسلاميه قيبه كميد وممنوع مثلا ودنا بدن يوروب كميد وحي ممنوع النقاب كبدو اني سنقابته ودنا بدن با قانون كودا كو دراي انه ممنوعيه يوروب ان جنرال حجابك waxay u haystaan inuu yahay isticbaad lilmar'a gabadhan inaad gumaysato haday xijaabantay dadka la gumaystayna kamid tahay bay qaadanayaan madaxweynayaashooda ra'iisul wasaarayaashooda kamid ah ku khudbadaynay marnaba duwalka horu maray inuu xijaab aqbala wax macquul ma aha Sarkozy khudbadiisa bay ku jirtay sida muslimka looga cabsi qabay la isaga fogeynayo مثلا qolyahan gaalubada qaada statistics qaada ay Switzerland waa wadanada ugu nabadgelyo badan dunida lagu tilmaamaa Switzerland bay ka qaadeen statistics
sheegaya ma la mamnuucaa muslimiintu masaajidda inay minaarad ka taagaan boqolkiiba 750 baa yidhi haa minaarad dambe waa inaan waddanka laga taagin haddaba waddannada dimuqraadiga ah minaarad dambe waa inaan waddanka laga taagin qaanuuniyana waa la mamnuucay iyadoo Switzerland ay degayeen 400,000 oo qof oo muslimi 400,000 oo muslima degan oo intooda badan ama Eurobiyana Yugoslaafiyadii hore burburtay Bosnia iyo dhulkii burburay Yugoslavia la iska oran jiray ama Turkiga ka yimi baa degan waxyaabaha istifzaaska sameynaya waxa kamid ah dhaqanku siduu yaalo mesela ninka muslimka markuu yiraahdo gabadha ma salaamo ama gabadha muslimada markay tiraahdo nin ma salaamo waa critical ba wadannada qaarkood laga dhigaya iclaamka in lagu qoraabay u dhowdahay shaqada in laga eriyaabay u dhowdahay dhakhtarkaad u timiye ama dhakhtaradaad u timay tiri ku gacan qaadi maayo inaanay kuba dawo yani waa wax fudud qof bini aadam ah inaad halkaas ka salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo haddaad tiraahdo gabadha ay ninku tiraahdo ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cidhiidhi inta 11 September dhacday in masaajidda iyo maraakista islaamiga ah la muraaqabeeyo inay Yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa axsaabta ay yidhaahdaan midigta fog almost Yurub hadda waxa ugu badan ee xukuma waa axsaabta fog axsaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadannada qaarkood ra'iisul wasaaraha bale xisbiga ugu xoogan bale oo wixii islaam u nusba sheegto oo dhan ka soo jeeda waa tamyiz la isku sameynaya xagga shaqada oo mesela ururka dawladda Mareykan leedahay waa lajna kamida lajaanta dawladdu leedahay lajna takaafu furas al-amal baa leedahay waxay ilaalisaa furas al-amal in dadku u siman yahay fursada shaqo si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir oranaya muslimka iyo wixii carab sheegta xataa غير muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xooga oo ah in la cunsureedeynaya ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihiin waa lajnadii dawladda tilmaamaysa September wixii ka dambeeyay mudaayaqaadku masaajidda oo dawaaragtay masaajidda qaarkood in hub lala galo la laayay dadkii ku jiray ama se derbiyadooda lagu faygaro erayo nacayb oo karaahiye tilmaamaya lagu dhigo ama se dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqa loo soo diro la leeyahay waa laga takhalusaya ilaa ya maqlisa waraaqa in loo diray xataa kongareska tii gashay wadii Soomaaliyeed ilhaana kongareska gashay xataa hanjabaada iyada loo diray de qofka kongareska ku jira hadii loo hanjabay inta ka hooseysa maxaad u malaynaysaa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabiga sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah oo mesela hay'adka islaamiga ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxa sameyn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxa la yidhi irhaab baa lacag siinaysaa bale wuxuu akhiiran saameeyey xawaaladii Soomaaliyeed oo la qofkii hooyadii $200 u diray meeshu marin lahaa xawaaladu lacagta ka qabata xagee marinaysaa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariyaa la la'ayay waa mushkilad taagan waxa ka muuqata ra'yiga galbeed siday TV-ga iyo raadiyowga iyo meediyaha iyo ay dacaayadka u wadaan sunnac ra'yiga bini'aadamka saa loo bedelayo mesela Almania Germany ayay statistics waxay ka qaadeen 2400 qof baa la weydiiyey مسلمين تدوروا لعبادهم ما لقوا عديريا حرية العبادة مسلمين تما مزيد من القيود ما الله صاره هذا حرر بدنو عدادنا إياه بقول كي بس يداد يكون تنبا جرمل قلب يدي ها جرمل كبارين يسووا كسي عسوري سيبا بقول كي بشان يتضباطا 0.7 وليبا أي يدي هل عداديو
waxaasi waxa ay tilmaamayaan urura soo baxay leh kitaabka qur-aan ha la gubo oo intay meel cidlaa isla taagaan kanays horteeda ama kitaab qur-aan oo la gubayo maraykan baa lagu gubay yurub baa lagu gubay waxaa jira xamlaadkaasi masaajidda qaarkood dadka lagu dhaawacay ama wax lagu yeeleeyey iclaamkana isagu wuxuu u badan yahay waagii baryaba in muslim la dacaydaynaya ku qorantay ama nebi maxamed oo wax laga sheegaya ama diinta wax laga sheegaya ama wax la mid ah ama system karaahiyo colaadii ay ku jirto aada ugu jira ama isdira iyo xaqiraad ay ku badan tahay taa macnaheedu maaha reer galbeedkao dhamm inay waalan yihiin quwa siyaasiya waxaa laga yaabaa intooda badan inay quwa caaqila yihiin dad waxgarada inay yihiin dad u arkaya qaxoontiga inay dantooda u qaateen oo waddanka uga shaqeeyaan ay yihiin laakiin siyaasiyiinta dee ra'yul caamka haddana kama hor iman karo oo mashaakilka taagan baa wuxuu yahay qofkan suuqa jooga footaynaya oo xisbiga ugu ridaya nimanka siyaasiyiintii waxay arkayaan dhaqaalaha waddanku iyo dowladnimadu waddanku inay u baahan tahay dadkan inay qaataan laakiin axsaabtii cunsuriyiinta iyaguna dhanka kale waxay akhrinayaan weerar baa lagu yahay diintiinnii kaljarkiinnii afkiinnii dhaqankiinnii waxaa la rabaa meesha tan in balli yaroo muslima laga asaaso saa daraaddeed shacabkii waa la baqageliyey sababta awgeed bay axsaabta reer yamiinka ah ay u soo baxayaan oo dee dadkiibay waxa kan ku akhrinayaan marka quwa caaqila way jirtaa laakiin haddana kama hortegi karto wax badan oo uu shacabka lagu buufiyey ama see loo akhriyey waddannada reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gedisan yihiin intaa waxaa raacda intaas waa ضغوط خارجية انت waxaa raacda tamar darida muslimiinta oo kow dadka muslimka meesha tagay تعدد المذاهب والانتماءات العرقية والجغرافية واللغوية مسلم كميشة تجي وكلا عرقيال وصوشود اسكو مد ماها اسكو افكو ما هضلان اسم فهمان مذاهب فقهية وكلا قدسان بيشتان اما مذاهب عقدية وكلا قدسان هل تسالان كسينيا دوني دا مسلم كلا كاله soomaaliya way burburtay laakiin rabshaduhu waxay yaraadeen markii reer waliba meeshii uu dhashay qabtay meeshii aad u dhalatay markaad joogto dee tolkaabaa joogo inta badan waa iswaafaqaysaa soomaaliya nabadeedu inta badan imika saasay ku salaysantahay maadaama isdhexgalkii uu yaraaday cid waliba meeshii ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqor iska joogaa soomaalida yurub joogta soomaalida kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeyo hal masaajid la isugu geeyo la yidhaha halkan baa wada leedin ama hal jaaliyad baa wada leedin oo midi soomaali weyn raadinayo oo midi somaliland raadinayo oo midi etoobiya ka yimo meel kale u wado oo midi shanta soomaaliyeed la sheegi jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meel baa dagaal ka dhacaya safalawalka ragga ku jirun baaba ishaya oo lacagta dira waa odayadan safalawalka ku tukanaya dagaal kastoo soomaaliya ka dhaca kuwan baa lacagta dira waa mashkilad kale maxaad u malaynaysaa markaa acraaqdii muslimiinta oo dhan kuwii ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii suuriya isku soo dilaa jooga kuwii masar isku soo dila meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firaqa iyo caqaa'idda soomaalidu dee may aqooninoo shaaficiye oo iska caynkaasunba iska ahaayeen marka xaggeer la isugu tago wax walba waaba la isku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soo dhasay war miyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna maaha dad isku xidhan oo iscaabii kara ama wax iska caabii kara maalinta ilmo soomaaliyeed la qaatay ilmo soomaaliyeed baa la qaataa la leeyahy laakiin kuwa kale dee ilmo soomaaliyeed oo la qaatay wax dani kagama jirto maalinta ilmo bagastaaniya la qaatay waa ilmo bagastaaniya la qaatay kuwa kale wax dani kagama jirto intaa waxaa ka sii daran dowladaha muslimkuna iyagaaba aqaliyaadka ka sii liito uma hadli karaan dee ma dowlad muslima odhan karta dadka muslimiinta yurub jooga waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda in alisaan kuway maamulayeen bay xaqooda ilaalin waayeen ama kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waa waxaan jirinayana
markaa boqoraa ku odhanaysa maya sacuudigu uu hadlin ama dowlad waliba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka firdhatay bay u doodaysaa xaggana ma jiro duwal islaami oo lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka odhanaya ma jiro intaasi waa inta guud ee muslimka oo dhami wada wadaago qadaayad muslimku kala wadaagaa jira oo dhibaatooyin ka mid ah soomaalidana laga yaabo inay gaar ku sii noqoto waa mushkiladda huwiyada iyo mushkilatu luga ama aan idhahda mushkilatu lhuwiya oo afarta qaybood oo ay u qaybiyaan innaga laba xoog inoo sii khuseeya alcaqiida walluga huwiyadu waa aidhigii bini aadamkuu lahaa identitygoodii waa aqoonsigoodii adigu waxaad tahay qof muslima oo soomaaliyeed caqiide islaamiya rumaysan muctaqadku ama caqiidadu qofku nolosha wuxuu ka arkay oo dhan waa waxa maamula kownka oo dhan waxaad ka rumaysantay adigu waxaad rumaysantahay ilaah inuu jiro dunida tan samaystay bini aadamka keenay cibaadadiisa faray aakhiro abaal marinaya janniya naari jirto waxaas adigu rumaysan tahay qofka halka ka tegay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxaa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin laakiin waxaad u tegaysaa bulsho aan diin kula wadaagin dhaqan kula wadaagin af kula wadaagin taariikh kula wadaagin taasi waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo wax walba su-aal baa ka taagan waayo qofku markuu waddankiisa joogay environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan waxaa asalkaa isku waafaqsan مثلا أركان الإيمان كوين اسكوا فقصني إلهي جريتانكيسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابك قرآن ملائكة آخرة القضاء والقدر أركان الإسلام قال لي حدا ما وحمد صوماليا ذا كم ما يدركت ما يا مركز حكى وتكته أنت بمرم بقليه وهو ملتك الجراليسم وديمه دريد ودم بميشة تاجن qofkii Soomaaliyeed hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaabaa inuu cabaar sii joogo ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u haynin markuu tago isaga maxaa ku dhacaya inta uu maqlay dadkoolena uu ka maqlay bulshada isba weydiinayna uu arko isna waa rumeeyay wax daliile se muu baadhin waxa aqoona uma laha mid diineed mid filosofiyeed mid caqliyeed wuxuu leeyahay baabkaasi ku jira ma jiro waana saa dadku u badan yahay qof mutakhasis oo waxa kan si gaar ah u baaray mooyaane waa iimaanka mujmalka ee dadku u badan yahay iimaanka mujmalka haddii muran la galiyo maxaad ku difaacaysaa wax waliba uu muran galo kii weyna gartay كير أنت كده قاعد لقليه سكول لقليه هلك كصوب حي إسقى ما حد كفيل إسقى إنه رمى استمرها نيجي هلك كده جاي ويني والله جاي يبينه الزينيستو لكن إسقى هو أركي الزينة دون حما وكل عيته يني دم بيتي وهذا من الإله يعفي صحيح كما اللي هو أركي يوحنا السبعين يتاي معي دم بي دبتنا إلهي بعرف السويدينية كيرا ماشي أخو كوريك كله واي أي دنبي ونغطي عنا ضبا والله عنايات دي مركا لوطة محد عيا وأركا بلشدة ودنا ذا قاركود إمكا وحي سورق ودنا ذا قاركود أفرتشير كاين لوغو بلابو ورنقارات كدقستيد أفرتشير كاين وحلقو بلابا يا يعني عرورتا ماشي تمي كاني لبا أبو ليي كان يلبه هو يولي كان أبيه هو يولي ما تغني وحاه الملا بقى أبالي ولا ما ماشي وقام اللوط المرة بينا كورصدان مركز ريجستريشن كمركز الله سميني يسكول كوحل لي دي لبا أبو لي هو يا ما لا يسوي كان يلبه هو يولي ولا بسلامة وضع نولي أنا كان أبيه هو يولي الماء عرورة سال وسوي تربية كلاسكا kindergarten 4 year markuu marayo waxaan filay ingiriiska imka 2020 gaa la bilaabaya
systemkaasu ku baranaya wax lagu barayaa maxaad u malaynaysaa markaa dowladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida China imika wado China imika Turkistan sharqiya waa gobol muslim aha Turkistan dhul la yiraahdo muslimiina baa jiray bariga galbeed bay ahaayeen 1930yadii meelaha kan ayay ku duuleen Russianka iyo Chinesku midna Turkistan qarbiya buu qabsaday midna Turkistan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ahaa waa kuwa soo go'ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd China haysta China imika 2 milyan 3 milyan oo qof buu intuu ururiyay ba kaamam lagu guro waxa la leeyahay waa la humanize kareynaya waa la bini aadamaynaya waxa laga maydhaya aqoontiisa waxa laga maydhaya diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxa la rabaa in la baabi'iyo waxa soo dhan laga maydho caalam muslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxa la sameeynaya bay bilada bixinayeen taas macnaheedu wax weeyaan wadanada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen wadanada qarbigiisa ضغط المجتمع هي محاصرة الفساد للأسرة المسلمة أي عوامل ضاغطة من أجل تذويب الأقليات المسلمة ومحي عديدي قبل شيء إيوه فساد كرير كوردان دول بكا قوي غارساني وفاكتوريس كان صنايا إن يدتكم بالمان الصومالي ده هدا حوالي 30 سنة ده وجود بيه حوق وتجيي ميلانكم حصة بابا مركا ميلانكم حصة بابا إن أي وحبة وايا ضد بدنين وعقيدة دي سوايو ضد بدني إنه أنه سيدي يوقف أن وحبر ربع سنين قال روحي قاعدين إن أنا وحبر رمينين ما لها فيسبوك يدي وحوقا قيلين وكواركتان قارنا waxay u nool yihiin sidii aan waxba rumaysnayn koodan maayo waxba rumaysni laakiin qaabku uu nool yahay waa sidii aan waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da'yarta ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya systemka waxbarasho ee waddanku leeyahay hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethics waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalinayn markaad ilmaha ku darto uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa waxaa jiray nin gabyaayo philosoph oo muslima oo Pakistan meelaha u dhashay India Pakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen Pakistan ahaa Muhammad Iqbal baa la yiraahdaa waa nin double doctorate double masterate waxa sita Cambridge University meelaha macallin waa hore ka 1905 kii buu macallinka ahaa waa nin gabyaaya kaas wuxuu ka waramayay caalam islaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalam islaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay waxay sameeynayeen wuxuu yiri at-ta'liimu هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكونها كما يشاء تعليم تبويل وآي سيد اللغو دلالي قفك بنا آدم كان نول هدونا اللغو قابا يسيدي لدوني أنا بروفيسور كاسوحة المامي education كوينو يهي محي آي سيد قفك انتو دلالي وحو ربع سنة يوردان كسو سارا قفك لي فحجران نقبيا كلو هندية أكبر الإله الآباد اللي يراهده marka wuxuu sawirayaa gabay sukhriya ah ayuu wuxuu ku sawirayaa in tacliinku wuxuu sameeyo markaas wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii Masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tagay maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii Masar maxaa ceeb raacday halku caruurta iyo
fircoon kii yidhi de reer banu israa'iil wixii carruur ay dhalaan hala laayo sooma ahayn wuxuu leeyahy maxaa ceeb raacday intuu carruurta laynayay muu kulliyada u fura buu yidhi iyagoo si kale u dhintuun bay usoo bixi lahaayeene yacni iyagoo aan masri ahayn bay soo bixi lahaayeene kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in uu laayo waxay leenahay tacliimka noocaasi dhallinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guulaysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxaa meel bay iska dhigeen waa nin western oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilaan qofkii xirfad male waxba male klaaska tobnaad ama 11aad ama 12aad buu dirqa kaga baxay meel kaloo uu socdaa ma jirto soomaaliguna waa iska hanweeyo mushaharkan yare la qaataa kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdega ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka dabeetana mukhadar iyo ijraam criminals iyo xabsiyo ayay ku dambeeyeen qaybina musaxaadka caqliga bay ku dambeysay Soomaalidu waxay ka mid yihiin dad yaga ugu badan baan oran karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbada ay wadanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dad yaga aad ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yihiin walidaalika baa Soomaali badan oo iyagu istishaa jirta hadoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo Soomaaliya ma maqashay qof Soomaalida xabad lagu dhuftay meeno qof meel iska soo tuuray muslim ma maqlaysi laakiin xaqo waa caadi hadadu maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen daduna identity ka lubay intooda badan daayirtii dambe waa jira midhan masaajida ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba Yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weero kooban ka tilmaamo kow dhalinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu systemkaas ee dhalaaliyay waxbarasho ee la geliyay oo aanu jirin system islaami oo waxbaraya waayo system islaamiga ah meel baa waxa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yarba carruurtooda ka bixin karta saadaradeed dadka inta ugu badani public schools ka carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan islamic schools ku meel meesha uu ka jiro deynta ugu badanna kama jiro kalabaad madaaristu waa sabti iyo axad xoga quraana la qaybsiya qayb markuu qaybana markuu teenager gaarana quraankana uu iska daayaa waanu ka lumaa de qul walaad qaybtayna waxba ka arabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumayn qaliilan in yarba badbaaday qoladii dhalinyarada u badnayd ee meelahan ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarrada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanayo inan yaroo 20 jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baan noo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawanayo waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarrada la xirtay intii la sii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkii halka dhaxay ku sii lumeen Libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo Talyaaniga iyo intaan dhaxay iyada uu guban yahay oo waxba aanu dhaaminkii xagga joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba'een mostly waayo waxa la geeyay dhul firida dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badan oo ka mid way dumeen laga yaabaa hadii la idin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegay
odaygii baa furay islaantii baa la furay waa wada maqasheen baan u malaynin badan oo ka mid guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saas baa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad matalan halka ay joogtaan waa Uganda soo maaha standard baa jira standardka qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standardka lifeka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa fuqara وهذا كون لعقت صدري وروا $100 وكوروريا عرفت عشدودي وحاجة كشحادة يا ما كانوا كشحادة إلا عقب شرته وانقف وينو وحاجة اللي يدع عرفت أمام لها كوجا أمام هلكم كوجا أنتو صار شحادة يركيري سكتشوجا بقولينا أيه ندري يا در بابا هني كم بابا هركو صدري إما هذا تانتي هايستا واللي بوحين تاو سيدر حرفت ماله حرفت فرسمو يكون شغيستان مال الصوماليكو صوماليدو in general marka nugu hadallo wax xirfado qofka Soomaaliga leeyahay laba shay u baajira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari ka xayeeyo walabada xirfadood Soomaalidu xirfad kale ma ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socday oo Soomaalidaaba baa mushtarka u badan baan arkay safarka xaga kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuna adag oo aan ku ogolaan inaad si fudud u soo gashayo cashuur iyo kanina waa dul saaran yihiin saadaradeed tijaarada Soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa يعني وحوي ومقاحية الصومالي وحكا قضى انت قحونتيجا يبقى قحونتينimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yaro dirc iyago garad iibinaya iyo intii yareed Soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baac mushtar u jeeda wadanka inuu wax ka iibsado saawgeed xirfadii baac mushtar ee Soomaalidu lahayd Yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin de quantity iibinaya sadaradeed adigu haddaad soo gasho iskaba ka bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso ma xirfadda labaad ee Soomaaligu leeyahay waa darawalnimadaas ay qaarkood marka ay shaqadu banaato yani markay wadanka shaqo la'aan ka dhacdo dee dadkan qaxootiga waxa ma shaqooyinka ugu horeeyay waayo hoos buu soo dhacda shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yara furantay iyagu kuwa sare u yara kacayaan markaas waxa ku banaanaanaya dhulxaadkii iyo darawalkii iyo intaas banaanaanaysa hatta dhulxaadka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo tad ma fiqs ka qaadata xaadimaysid ay ku oranayaan dhabarka ku xanuuni doonaa dhowbaadna weydiinaysaa pension iyo waxa weyn certificate ka seeta system wax loo xaaraa jira hatta hadda tiraadaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxayo soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka Soomaaliga xirfad ma leh dadka Soomaaliyada siyaacaya qof xirfad leh ma jiro Soomaaliga xirfadiisa ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade ka sarana de koodii wadanka jooga haysta inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha waliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada muctaraf maaha marka horeba adiga waxa lagu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiyo waxa waxba kama jirayaan waa kii wadanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sita waa kaaka haddana wali albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa illa injineerada oo dhan waxa laga yaabaa inay taxi drivers ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayay
وتاكسي درايفر وباص درايفر ولوري درايفر وكا ساوغد وحويان فقرك كبحي ميسيد Soomaalida xagga joogta marka waa faqaro tabaqada ugu hooseysa bulshada ay la nooliyeen maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhiba waxa u raacda qurunka halkan kala tageen Soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan سوقد waxa laga yaabaa wax kasto isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyadka isku qabsadaan in la yiraahdo reer hebel uma maamulaya meesha ka baxaantay reer hebel kala soo galay waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale siraadaan warimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheegaa waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa إلا هوستا واحد كهيستا نمر ريبلا ماشي هيستا مركا دتك كله واحد وشيكتو حتى عادي ما جرو مركا بروبلم كينا لنا أركي مايو وضد ديدي ما دو يسرع دحادي بروبلم ما شيكتان موقن مايو وانا يسكون دقنتي وكلا بيحي ميسان كاسوا صورة دا دبتا ماشي كجرتا بني آدم كو انت بدن دبتا يساقا هيستو أركاه markaasuu is idhaahdaa dhibibo waatane haddaad ka baxdo malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin dee waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positive-kiina sheeg muxuu yahay positive-ka halkaa ka jira kow waxoogaagaa darawalladu soo direen ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraaye la siisiinayay uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guri aan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaantii iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay uu og yahay inay xaaraantii inay xalaal tahayna anigu aanan aad u hubin in badan oo ka mid ah xaaraan iyo xalaal waxay noqonayso aanan aad u hubin kaasi waa jira qadiyad labaad baa jiro oo ah gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga ah bay muujisay xijaabka iyo marada weyn ay jiidayso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaane intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabanidii waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhi surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi masalada xijaabka bulshadii kale way ku dhiiri gelisay ka waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cad oo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh yani dadkii kale oo marada weyn ku soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha Soomaaliyeed way faafiyeen waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo hadduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore uu dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhammaantood ay wada xufaadiin oo quraanka yaqaaniin عنصرك كلي الصومالي الدين هاني الرميسنتين لقبطانه ومساجدنا وادسين وضنا داسي دمركا الصوماليات بالذهب كود اسكا وروريي ان داليردا الصوماليات با بقول كبانديو بقول كدولار يكون كدولار بخيي بلشدا الصوماليات دارب بدن ومساجده انكستو ان كعبسي قبو inay sidii kuwii Turkida iyo Pakistan tu dhisay oo kale inay noqdaan masaajidda waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno
soomaaliya toddobaatanaadkii halkay joogtay konton oday unbaaba ku tukanaya war odaydan carruurtoodii meeday magaaladay ku jiraan dadka tukanayaan waa maxay waa konton oday oo benshanista soomaalidu masaajidda waa dhisaan midhadhka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay iyo inay qalad tahay laakiin dadka kale ku ammaanaanna way sameeyeen soomaalidu waa dad dhiiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka soomaaliya oo qaxoontiyo shalay yimi oo kongareska maraykan fadhiyo le maraykankan xukumaya soomaalidan maqal soomaali qaxoontiyo shalay ta yimi oo ingiriiska u fadhiya European Unionka inaan Soomaaliyeed baa u fadhiya oo le baarlamaanka Yurub baan u fadhiya ingiriiska waa nin ingiriis oo baarlamaanka Yurub u fadhiya nin Soomaaliyeed oo ordayo le baarlamaanka wadan Sweden ama kan baan ku jira ama inaan Soomaaliyeed oo le meeyarka magaalo Heblaayaan hay maraykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyar ka yihiin habla Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed gabdhaha isaga badan oo golaha deegaanada ee magaalooyin ku jira ma garanayo waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin qofka dee gaalada dhex cararay ee waxay walaaqayeen la walaaqay ilaa xagka uu soo gaadho laakiin waxa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yidhahdaan war nimankani waa niman active ma nimankii shalay ta yimi iyo kongareska fadhiistay ama shalay ta yimi iyo European Unionka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan soo duuduub beersantkaynaga lumay iyo beersantkaynu haynaa ee waxqabadka mid adduunya mid aakhiraba isku daro kee badan أنا waxaan ku wadaa inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta waxa laga yaabaa inaad aragteen laba saddex qof oo Yurub inta ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yiraahdo hebel Sweden buu ka yimi hebel Ingiriis ku ka yimi hebel Ingiriis ka yimi there were 1001 kunkii qof baa qof haysaan وميان ودننا ناني جوجين كونكي قف بقف وحيستا ميانو جوجين كونكي قف بطبنا وحيستا جوجا ودنا ضتن سوالي يقول يدي جوجا سوالي جوجا هدي له يقول ضد أنت وحيستين أنت وحيسن كونكي بوي كبدين قف يلا بيا صدق يا أفر بوي كبدين لكن ضد هالك جوجا مركز درجته مد باسبور مريك لي مالكن كمبني يركب فرطي أما مد السودان كي مالكن كبني يركب فرطي أما مد نرويج كي ورلا بيا أفرت كم بان نرويج شوجة لبا أركتنا أنتي كلامات أفرتك كي كل حاجة كم غطي كوابي أفرت كم بال مكان يديرا ده حاجة كم غير يعني وحلاقي بينا أنت بدن السويديني دتكم مركا واحد كو قال هبل بس بور مستعمل هبلا يكبر وروا 1 in 1000 كم بدنا هذا ده تصير عررته 1 in 1000 كأنه دقون يسمى 999 كأنه تكون بيرسو لا بد probability كيف هذا بدنس وحلانا هاي يوروب سيدا دتكو هايستان معها فقرة كتشرة وحلام با كتشرتا دبا كتشرتا قري بربري با كتشرة عروران قعان لغوهين با كتشرتا مدد إلهي عرورته وهاقاتشي واشوغان وحوغا قرآنك إلهي قار قيبسية واشوغان والله يابو إني مسابقات كعالمية مقشان إني قادين مرين كله وحلقة يابو مسابقة لغو قبطي سيداد يتبان قف با جايسة قادني سيداد يتبان قف صومالي با هايين لكن ده سيداد يتبان مركي جايسة قادتي سيداد يتبان كنا شيئا ميل درمي كدعدية حبسية دي مدولان لقرنين مركا وحويان وحوغا دان كان واجرة مستقبل كسيدو ايجي هاي مستقبلكم والله أعلم سيدو يمكيه هدوكو الصعده ما قروح بدنا دي وحلا بدلا قرن مايو لكن سيدو هدا يهي هدو أصي صعده إيجو بحوث يسميان وحكو تلماميان قولادان قايلين السيلة كالجركا اسبدلي وحبا اسبدلي وحيلين ما حبا اسم بدلين وحين السوقي ناوم بيلين سدح جنريشن دن دتك كم من نقونيها كان يمي كودالي كوسي دالي وما نسوقي نابيلي
saddex generation oo halkan ku dhashaa bay leeyihin generationka saddexaad nin European un bay leeyihin ama ha madoobaada ama ha caddaadee laakiin thaqaafadii iyo afkii iyo culturkii iyo wixii uu xagga kala yimi wuu lumayaa Yurub markaan tagaan ogaaday af Soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af Soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqad diin xambaarsan waayo dhasha maanta Yurub joogtaa ee Soomaaliyeed intooda badan iyo Soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yidhaahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba kaa garanaynin kaasuu gurigiisii u haystaa adiga hadduu kuu yimaado waa waageeni isma fahmaysaa intaa waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la la'yi waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada Soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay Soomaaliga xataa afafka kale waxa laga yaabaa inay fahmaan inaanay ku hadlin xataa afafka kale ku akhriya ama wax ku bartay inay fahmaan baa laga yaabaa inaanay ahayn maxay fluent speakers maaha sida awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya inanka Soomaaliyeed ee Norway ku koray ama Sweden ku koray ama Denmark ku koray ama Germany ku koray ama af Soomaali ma hayo hadduu af Soomaali waayo yuu diin ka baranaya baa idinka weydiinaya yuu diin baraya ma af Carabu bartaad u malaynaysaa yuu diinta ku baranayo si af Norwegia diini ugu qoranta maya xaguu markaa diin ka baranaya kaasi ku sii dhala muxuu barayaa kaasi waa laga yaabaa markuu gababo inuu yidhaahdo hooyadayoo tugtukataan soo gaadhay laakiin ka yari ma soo gaadhin يعني مسلمينتي انقبضتي مثلا وطن كان لا يراهدو استراليا حقيقة دنبيين مسلمين بدون افغانستان على قاضي اوروبا ودين انجليز كو ترنده ما هيسنين ترنده مركو ديسانيي جيلا سالوتي جيلا ترada badan leemka keynta lagu sii daayo Australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen wadarkii un qof family name kiisa saddexaad family name kiisa dambe uu magac muslim yahay laakiin isagoon muslim ahayn iyo wuxuu dhowtoona Soomaalida South Africa lagay xagay ku dambeeyeen Soomaalidan Kenya meelaha waxa laga yaabaa inay ku sii dhawaayeen wali wadankii oo ay waladan East Africa inay wadanka si uun xiriir u lahaayeen Soomaalida South Africa lagay 500 oo nin buu Ingiriisku geeyay waxba lagama hayo hal nin la sheegaa hal nin la sheegay wax noqdo markii dambana Soomaalida ku soo noqdo intii kale iyo waxay dhaleen toona meel ay ku dambeeyaan lama hayo su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga ee meesha tagay mustaqbalkoodu sidoo noqonaya dee waa laba mid in laga xoog bato la milo oo dadku si cad uma odhanayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tagay laakiin wuu milmayaa jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii diin yariyay ilan systemka waxbarasho uu galayo noloshu la kulmayo dadku la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo deynay sidaa u dhacdo iyo si kale mucjiso ayna u dhacdo taana rageedii lama hayo booli ma aragtay sida kale mucjisadii waa maxay weynanu jiilu saxaabo kala noqono dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushin min ad-du'aat inay yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadama bedelaya de hore way taariikhda uga dhacday wadad muslimiin hore u sameeyeen laakiin dadkani hami diineedba ma sideen markay meesha tageen mise hunguridoon bay haayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin aljundi almajhuul lilislam dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yaryar oo gaalada ahaan jiray waa soo islaameen laakiin inta inaga baxday iyo inta islaamta kee badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada kee badan weli waxaad moodaa inuu badan yahay inta xaggooda u soo soconaysa muhaajiriintii hore muslimiinta ee wadannada tagay nawcun ma waa milmeen inkastoo aad hadda moodo
fufkan dambe islaamigii inuu dib u soo yara gaadhay oo waxoogaa dadkaa hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn laakiin waddannada qaarkood waxaa tegay dad muslim oo aqoon-yahana maalan maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha brofesorka ah ama waxa ka aqoon-yahan inay tageen halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska ummiyiin oo aan aqoon lahayn waa jira isbeddel cusub oo dunida ka jira hadduu yahay isbeddelka technology-ga ah oo xidhiirkan technology-ga ee internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh waagii hore ma jirin ninka xaggaa ka yimaadaa muslim marka buu soo raaci jiray 3 bilood buu jidka ku soo jiri jiray bil afraad buu waddanka soo gaadhi jiray haddiiba uu yimaado dii kalena ma soo noqon jirin laakiin imika itisaalku waa badan yahay tv-yadan internationalki waa tiro badan yihiin afafka dunida laga hadlaya baahaya waa tiro badan yihiin waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan xidhiidhkan tirada badan le la samaynaya raad ma yeelan karaa oo ma nidhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gedisnaanayaan waxyaabaha yaryara noocaasee jira ilaahay lagama qusto subxaanahu wa tacaala dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan waa la isleeyahay wax bedela laakiin ilaa hadda trendku xaggu u socdaa ilama qurux badna dadkiina dhulkan joogana ee muslimkaana kuma taliyeen inay xaggaa qabtaan waayo waad iswaayi meel aad ugu sarraysaad joogtaa iyo bulsho aad ugu hoosaysaa baad u tegi soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqiro ama lama maago miyay kaa caqli yar yihiin miyay kaa gedisan yihiin waa bulshadunbaa dhaqan ka dhigatay inay maagto soo maaha waxaad u tegi bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto idan mahma adigu aad inay reer hebel isu haysato saa isu taagayso bulshada agteeda waxaa tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan xataa muslimka haddii la kaatarigareeyo dee muslimka madoowe muslimka carbeed wuu kasii dambeeyaa soo maha dee maqaayistooda markaan ku eegno marka adigu muslim baad tahay madow baad tahay qaxoontaad tahay faqiir baad tahay afartaas mid quraa lagugu nici karaa adigoo afartii baad kulansatay hadday jiraan wax mambuud ka ah yurub dhexdeeda waa 40 shay afartaba adigu waad kulansatay marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha hadda kama warramin nusuustii qur'aan iyo xadiis iyo ma bannaanta iyo ma bannaana toona idinka kama warramin baabkaasina waxaa laga yaabaa inay in badan culamada ka maqasheen taa kama warramin ee waxaan ka warramayaaba aragtidiinana xooladoonka iyo tacabirka waar waxoogaa baan soo xoogsanaya adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo inaanay ahayn beersantka wax helay markaa waa beersantka aadka u yar weliba beersantkaasina waxoogaa yara uu helu la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyey markuu hore uu halka imanaya wax may ahayn 30 kun 40 kun buu la ordayey markuu halkan yimi laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay laakiin xaggaa waxba ku noqon mayso xaggaa waxba ku noqon mayso marka waa mid uuna 40kii uu 10ka sannadood ururinayay guri geliyey iyo mid 40kii uu ururinayay sidii warbal East Africa iyo meelaha la warwareegiyo Dubai iyo meelaha la tago wax ku rogrog laakiin kana 10 sannadood buu intaas soo ururinayay oo laga yaabaa inuu double shift shaqaynayay inta ugu badan le midharka waxoogaa la soo cararay waa nimaan nasanin habeen iyo maalinba lagu xamaalayay 8 saacadood xaggana intuu galo 2 saacadood seexdo 8 kaloo meel kala galo dhowr saacadood seexdo 8 waa mid saa loogu xamaalay waxaan xasuustaa ragga qaar yidhi 24 saacadood oo shaqaa baan u galay
ووقتكم وافر يلا تنبال لي قور ما ضحوا انت كونتراكيدو صحيح افر يلا تنسى عضوضه ما يدسبان قال هلكاسان صوفيقا 8 ساعات bay siiyeen laakiin waan isxiijiyaa 5 baan ku dhameeyaa ka kalaan galaa 8 bay igu siiyeen 5 labadii saddexaad uu ka soo xaday labada meelood ayuu contract kale ku saxeexay deetana 15 saacadood oo 24 loogu qiimeeyo galaa ama 20 saacadood 24 weska waali uun 3 sanadood markuu waalida ku jiray buu halkan yimo uu yiri xogaa baan la soo degay xagga maxaa shaqo banaan laga baa mushtaray kara marka waxaan idin leeyahay war meeshan lacag fara taaltaalo la soo qaadaana ma jirto dhib aad u badanina waa ka jirtaa dhib aad u tiro badanina waa ka jirtaa bulsho kaa xoog badan oo kaa lacag badan oo systemkeedu dhisan yahay na ma wada waajihi kartid adigoo aan mabaadi iyo diimo iyo waxaad faafinayso ood ku dhegantay aanay jirin weliba dee rag waaweynoo ducaada gartaya dumar iyo caruur iyo dad maata ah meel ay midho ka keenayaan ma aha waa meel soomaalidu joogtaa aanay qurux badnayn haddana ay caamba ku noqdeen meelaha qaarkood ijraamka maxaad u malaynaysaa hal magaalo soomaalida joogta hadday 60 iyadu iska dishay oo dhalinyaro soomaaliyeed 60 nin oo dhalinyaro hal magaalo lagu aas 60 kaasi inta ugu badan iyaga istilay cidna uma sheegin waa gangis kala noocay ku jiraan oo daroogiyo baliyo bas ka baa mushtareeya gangan baa xabad laga dilaayana waxba dawladdu ma ishtookana waxba kale yana mid kale dilayaan kuwana mid bay ugu qalaf siinayaan kuwana mid kale ugu qalaf siinayaan waqti yar bay 60 Soomaaliyeed xabaashi ku rideen waa hal magaalo oo Western kamida marka dadka inay u ducaysaan waliba astaamahan arkaya waxa kamid ah midhadkii dhibta dareemay ama wax fahmay culimadii wax sheegi lahaana dib bay soo yaaceen waxay rabaan intay carruurtooda ka haystaan iskaga yimaadaan oo ay meelahan yimaadaan waraabaha iyaba loo kala imanaya maxay iyo xaamada loo kala imanaya waayo nin waliba yaa nafsi buu taagan yahay marka inuu wax badbaadiyada iyo wuxuu sir waar adiga intaad ka raacin allahumma naxariista anaga ma nagu dari gaaray ma maqash Soomaalida waxay yiraahdaan mid baa walaalkii la dilay aan fariid ahayn dabeetana way tirtirsiiyeen waxay yiraahdeen war orodo walaalka u soo marka qoraal la siiyo waxa la yiri doon wuxuu warwareegay malaakan kalena mid gaangistara ninkii baa meel la iska helo wala israsaasay lafihiisa buu kala soo baxsado waxa la yiri war ninkii ma dishay war alla ma naxariista anaga ma nagu dari gaaray buu yiri marka rag badan waxay yiraahdeen warnaga ma nagu dari gaareen oo ka yimaadeen intii wuxuun isbidaysayna dadka u duceeyo sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin